xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa saakal fadhiga yeesheen kaga dooday dib u habeynta iyo wax ka bedelka xeerka kufsiga. xildhibaanadan oo arintan doodo kala duwan ka qabay waxaa hadaladoodii kamid ahaa xeerkani qodob kaliya oo ku qoran halkii xeerkii hore qodobadiis ku qornaa ma jiro. taa macnaheeduna waxay ka dhigan tahay inuu yahay xeerkani xeer cusub oo aan ahayn xeerkii goluhu ansixiyay wax ka bedelkii kaabadana lagu soo sameeyay. halkan waxa lagu qoray wax ka bedeliye kaabad xeerka kufsiga sinada iyo xadgudubyada la xiriira. horta halka waxa uu ku waayay xeerkani wax ka bedelkiye kaabadii la sheegayay ee magaca xeerku sidoo xambaarsan yahay tilmaamayay qodobka faqradda labaad ee sheegaysa kufsiga macnihiisu waxa uu yahay. kufsigu waa qof la khasbay oo la xoogay isagoo ka raali ahayn. zinaduna sharci gooniya bay leedahay waa laba qof oo iyagoo aqalgoodii qaba oo miyirkoodii qaba waxaan sameeyay dambigan galay. marka la xukumayana laba xukun oo gaar ah bay kala leeyihiin. qofkii aan hore guur aan u yeelan ama aan xaas yeelan waanu naqaanaa diintu siday noo sheegayso waa la jeedlayaa 80 baa lagu dhufanayaa meel fagaara ah si uu khasoobo. qofka soo maray meher sharciyana arrintiisu waxa weeyaan way ka duwan tahay waa rajmi weey waa dil dhagaxa. waxa aynu ogsoonahay in shariicada muslimka aynu ahaano waynu cibaadsanaa waynu tukanaa laakiin shariicada kuma dhaqanno. waxa ka dambeeyana waxa weeye bulshada caalamka xuquuqul insaanka waxa weeye dad bidaayiina dadkii way dilayaan dhagax bay ku dilayaan sida aawadeed baa looga baqanayaa oo loogu dhacaynin. sida aawadeed ayaa looga baqanayaa oo loogu dhacaynin. marka shariicada waa la waafajinayaa wuxuu dambigaasi yahay haddii aynaan fulinaynin deeynaan ku dhaqmin oo yeynaan keenin oo yeynaan sharci ka dhigin ilaa dambi ina saaran weeye oo aynu fulin weynay. haddii aan ku soo dhawaado ujeedooyinka xeerka in badan baan eegay si badan baan u eegay wax badan different weyn baa u dhaxeeya kii hore iyo isaga marka si fiican bay ugu soo fadhiisiyeen daraasad fiican oo qiimaysan bay ku soo fadhiisiyeen. marka waxaan filayaa mar haddii si fiican loo qeexay kulli anigu meelo badan baan ka soo eegay in badan baan ka fiirsaday laakiin haddaan u gudagallo ujeedooyinka xeerkan waxay yihiin kuwan soo socda in la daadejiyo xeer waafaqsan shareecada islaamka iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mabaadi'da guud ee cadaaladda qiimka iyo dhaqanka suuban ee ummaddu leedahay. si fiican qodobkaas waan taageersanahay in la hirgeliyo ciqaabta shareecadu dhigtay sinada noocyada kala duwan sida ay isla ogol yihiin labada sinaysanaya iyo khasab iyo jujuubku timaada iyo fal dembiyeedyada kale ee la xidhiidha. in la ilaaliyo karaamada aadamaha dhammaantood gaar ahaan qofka dumarka ah. in laga hortago isla markaana la joojiyo faafinta sinada waa sax taasna runtii aad iyo aad baan u eegay waana si fiican sa looga soo shaqeeyay shareecadiina way waafaqsan tahay. waxaan oran lahaa sidiisaaba lagu ansixiyo maadaama wixii qeexan yihiin oo si fiican oo sharciga diinta islaamka ku qeexan yihiin. xeerku bal xaqiiqada sida uu xildhibaan Xuseen Ismaaciil u tilmaamay tacab badan baa la geliyay xeerka. waxa kale oo la geliyay xaqii shareecadana aad iyo aad baa loola doontay oo muxuu ahaayay inay wixii arrimaha shareecada ku saabsan ay arrinta ka qabtana si fiican baa loo fasiray. laakiin qodobada ku saabsan ciqaabta ku saabsan ee xeerkan laba arrimood baa isdaba socda. waxa weeye qofka gala faldambiyeed kufsi waxa lagu qaadayaa xadka zinada. hadday dhageysa xildhibaano xadka zinada lagu qaadayaa iyo tacsiir wax la yiraahdo oo xadhig oo xadhiguna qoran yahay
shan sannadood ilaa 10 sannadood 10 sannadood ilaa 20 sannadood tacsiir baa lagu magacaabay marka waxa weeye laba ciqaabood baa wada socda ciqaabta xadka oo macnaheedu yahay xadku yahay qofkii gala kufsi sina gala in ama la arjumo ama la jeediyo waa Cabdiqani Boos telefishinka caalamiga ee Gobonimo daawadee aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran telefishinka cusub ee Gobonimo TV waxaan kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka Tecom 6 frequency-ga 413 cyber rate-ka 15,000 sidoo kale daawadee waxaad nagala socon kartaa bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube channel. daawadeha markasta Gobonimo TV ku xidhnow kana daawo warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadi bay isugu jiraan aad ayaad u mahadsantahay markasta iyo xilli kasta ku xidhnow Gobonimo TV